السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha meel kasta aad joogtaan. alxamdulilah waxaan rajeynaya in caafimaad qabtaan anaka iska fiicannahay alxamdulilah shukrillah. maanta waxaan inoo wadaa vlog yar insha allah. waxaan rajeynaya inaa wax ka faa'iidaan biidnillah. insha allah saaka markaan soo kacnay videoga insha allah waxaa weeyaan waa laba qayb aan isku soo daray morningkii iyo galabkii insha allah laba maalin ka koobnaa. biidnillah xaggan waxaan ku sameysanayaa waa pancake saaka markaan soo toosanay subaxii pancake ku sameysanaynay insha allah. pancake iyo badan aan soo geliyay ma rabin inaan duubo pancake-na waxaan u maleysaa gurigeena asbuucii haddaan mar cunin ama laba haan cunin waan ka helnaa alxamdulilah. sida canjeerada oo kale noo yahay anaga canjeerada marka saas u dubanin canjeerada dadka saas ma u jecla marka gurigeena canjeero ma laga cuno sida canjeerada booskeeda inooga jirtaa u maleysaa. waxaan ku daraya waxaa waaye waa biscuit oo insha allah la shiiday marba waxaan ku daynaaday pancake mar biscuit ku daar marba wax isku soo baxaan insha allah. intaas kadib xaggan waxaan ku dhaqanayaa vegetable-kan oo mataqaanay oo u maleysay inay waqtigeedii ka dhici rabtay waxaan rabaa inaan xag hoose oo freezer-ka geliyo marka waan dhaqayaa ayaan ku xirayaa hadhowdii markaan u baahdo insha allah si mataqaanaa ula soo baxo ku daro qudrada insha allah. hadii kale hadday xagga sare ku jiraan waxay noqonayaan daydkoodana wuu dhacayaa wayna xumaanayaan ma la isticmaali kara marka si faysaa ugu dhicin insha allah xag hoosaan gelinaya biidnillah. so waxaan idinla wadaagi doonaa maanta waxaan sameynaa insha allah. saciid yaraan iskoolka geyn doonaa kabacdi yaasir aan geynaya meesha baybiyada la geeyo insha allah. intaas kabacdi adeegan doonan doonaa kadambana waxaan sameysanaynaa afur insha allah. asliin quraaca soo cuntay afurkan maxaa waaye videoga sidaan hore u sheegay laba video isku soo dara waaye ma rabin inaan soo kala reebo insha allah. marka ila socdo biidnillah ila daawada waxaan sameyn doono. waxaan dhihi rabay xaggan insha allah qudaarta markaad soo iibsataan sidii mataqaanaa broccoli-ga oo kaleeto qudaarta sidan iskugu dhegdhegan insha allah intaad dhexda saa ugu jartaan iska dhaqo. ayaan hore maalin hore waxaa igu dhacay broccoli-gan oo greenka ah anoo mataqaanta karis dhahayo inta badan ani waan jarjaraa inta midi u qaata saa u kala geliyaa bahal mataqaanaa iga soo dhexbaxay bahal oo asaga green u eg insha allah saa ma aqaani magaciisa bahalka bahal weyna saa ugu dhex jiray marka bahalaha ku dhex nool qudaarta insha allah inta saa dhexda ugu kala jarjartaan insha allah iska dhaqani maalinta sidaan uga arkaba shakiyan ka qaba marka broccoli-ga weli waa green bahalada oo ma aqaantaay qudaarta waxyaabaha ka dhashana iyagana waa green sidaas oo kaleeta insha allah iska dhaqa biidnillah. fruitkana sidaas oo kale marka soo gadataan weli strawberry-ga lama arka laakiin bahalaha ku dhex nool insha allah biyo la dhiga ama baking soda ama cusbo kula dhiga insha allah kabacdi bahalada way dhimanayaan. sidaas inta is dhahdaan inta badan waxay dhahaan qudaarta way dhaqan yihiin sida spinach-ka oo kaleeta kale-ka oo kale way dhaqan yihiin ay dhahaan laakiin ma la aamino iska sii dhaqa guriga markaa keensataan insha allah. xaggan waxaan ku diyaarsanayaa waa saciid uniformkiisi intaan ku diyaarsadaa meesha iska sii dhigtay marka hadan waan diyaarinayaa kabacdi waan bixinaa. maanta wuxuu lahaa half day ama hadii dhaqso soo baxaya xilli dambana wuu bilaabayay saacado yar kooban wuu joogaya iskoolka insha allah. kabacdi isagaan soo diyaarinayaa and then waan israacaynaa insha allah. markaan isaga geeyo kabacdina sidaan hore u dhahay yaasira meesha play ciyaalka ilmaha lagu ciyaarsiiyaan geyn doonaa insha allah. alxamdulilah guriga kusoo noqonay xaggan waxaan ku haystaa waa adeegii insha allah.
adeega marka waxay naga dhinaa waxyaalaha ay yihiin ayaan idila wadaagaya biidnillah. waxay naga dhinaa guriga so xaggan ka bilaabi doonaa waxaan idila share garan doonaa waxyaabahan soo iibiyay. kan waxaa waa pesto baastada lagu darsada ama sidiisa xataa waa ku isticmaali kartaa. xaggana waxaan ku haystaa Nando's peri peri gan aadaan u isticmaalnaa. xaggan waxaan ku haystaa pisco gurigeena ma laga waayo markasta. intan waxaan ku haystaa waa garlic shiidan 2 xabo gasaca tomaatada peanut sidoo kale guriga ma laga waayo. xaggan cream waan ku haystaa double cream xagga malab waan ku haystaa xaggana ku soo haray xagga waxaan ku haystaa waa broccoli cauliflower inshallah. xaggana waa fruit grapes cornflakes basal xabad oo cucumber ama qajaar pear. xaggana waxaan ku haystaa waa apple orange boorash saliid xabad cusba caaga caana ah inshallah. kan waxaa waaye wrapka waxaan isticmaalnaa whole mealkan inshallah. waxaa laga sameeyay qamadiga aad u fiican yahay. xaggan waxaan ku haysanaa crackers kan aad ugu helnaa masha Allah waxaa weeyaan low fat waxaan ka wadaa macaanka ku yar aad u fiican yahay special ciyaalka. xaggan waxaan ku haystaa waa biscuitka shaha lagu cabo aan ku haystaa. intaas ahayd maanta intii naga dhineed masha Allah haddaa wax ka faa'iiday alxamdulillah. hadda xaggan waxaan ku samaysanayaa waa sambusa insha Allah. sambuska fooliyadan baxsanayay marka xilli dambe ahayd marka waan boobsinaya wax kasta. xaggana suugaan ku samaysanayaa dhinaca kale waxaan ku sameynayaa baasto waan isku shaqeynayay adiga waxaan rajeynayaa inta videogan ka hesheen biidnillah. mar kale waxaan idin leeyahay insha Allah walaalahay ku cusub soo dhawaada hey mama walaalahay ku cusub soo dhawaada insha Allah. please subscribe kana noo saaro hadda hore idila joogi jirteenna aad ayaa u mahadsantihiin asxaabta biidnillah. insha Allah waxaan rajeynayaa wax yar baalaha ka dhigayna wax ka faa'iideen insha Allah. videoyo kale soo wada biidnillah sifa u misgareynina please subscribe ka ii taabta biidnillah. khayr badan ay idin dhaafaya haddaa intan soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay. marka xaggan sambuuskan ku samaysan doonaa afurkan ku diyaarsanaya insha Allah. ila sii daawada videogeena dambe aan ismaqli doonaa biidnillah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.